waxaa haboon inaad joojisid jiljilaaca nolosha. dad badan waxaa wax uga dheelay in ay aad iyo aad u jilicsan yihiin oo mara baati oo kale ay u nugul yihiin oo wax yarna ayna u dulqaadan karin waxnana ayna qabsan karin. mentality-ga iyo maskaxda iyo fikirka iyo waxa gudaha ka guuxaya ayaa waxa banaankana kaaga dhaboobi doona haddii aadan gudahaas iska sixin oo gudaha aad ka jilicsan tahay ogow marna banaanka kama adkaan karto. adayga banaanka wuxuu reflection u yahay oo uu turjumaad ka bixinayaa qofka kan gudaha in uu yahay qof ka dhisan. walidaalika murqaha aad horumarinaysid maalin walba jiimka aad aadaysid waxyaabahaasoo dhan limit ayay leeyihiin wax badanna kuma tarayaan mar haddii inta ay kaa bugto. si fiican u fikir. howdka waxaa jooga nin la yidhaahdo the king of the jungle, boqorka duurjoogta, libaaxa weeye. weli ma isweydiisa firqiga u dhaxeeya libaaxa iyo maroodiga. waxaad ogaanaysaa libaaxu ma aha xayawaanka ugu xooga badan ee jooga duurka. waa laga xoog badan yahay, waa laga weyn yahay muuqaal ahaan oo gariga aragtaa ka dheer oo ka lafo waaweyn oo maroodiga aragtaa intaa le. laakiin firqiga u dhaxeeya waxa weeye marka libaaxu uu arko maroodi socda already wuxuu ku fikirayaa quraacda iyo qadada iyo cashada keed ka dhigtaa kan yaa dhinacaas uu fikiraa. halka maroodigu isagu uu ku fikiro war sideed u baxsataa, xageed ku fakataa, speed nooceed ku bilowdaa marka ugu horeyso aad baxaysid. labadaasaa kala tagsiis mooyee maroodigu awoodda saaran haddii uu arki lahaa gudahana uu uga darsan lahaa aad adaygaas iyo nugeylka hadduu iska dhaafi lahaa waxaa laga yaabi lahaa libaax iyo wax la mida inaynu u soo dhowaan lahayn. adiga tii oo kale inay ku haysat soo suuragal maaha. wax waliba adigoo haysta ayaad haddana inta ka bugtaa amaan la qaban karin, amaan la samayn karin, amay dhacdaa, amay soo duntaa, armaan rafaadaa, armaan jabaa. inta tira ma lahan asxaabtayda ka mid ah ee shaqada ay joogaan oo ay ku bukaan oo ay ku jiran yihiin oo waxna aynan ku haysan oo dhowrka $100 ama dhowrka $1,000 ay ka helaan ka dhaxbixila sababtoo ah waxay aaminsan yihiin ama u malaynayaan haddii ay baxaan inay balaayo kale iyo halaag kale iyo wax kale la kulmi doonaan culaysa. si fiican isaga fiiri. maskaxdaada ha shaqayso. mentality-gaaga iyo qaabka u fikiraysid si fiican inta uga fikirtid ma maroodi baad rabtaa inaad noqotid oo mar walba qax ku jira mise waxaad rabtaa inaad libaax noqotid oo maskaxdiisa ku fikiraysa mar waliba waxa kan sidii uu isaga badbaadin lahaa, uga shaqaysan lahaa, u cuni lahaa, waxna uga qabsan lahaa. nolosha marka waa howdkaas oo kale. adiguna ama libaax baad noqoni ama waxaad noqonaysaa maroodiga hadba midkaa doonto. waxaan xasuustaa qiso cajiib oo hadda ka hor igu dhacday. maraykankan tagay markaasaa raggii meesha igu soo dhaweeyay akhyaarta ahaa ayaa nin ka mid ah waxaan weydiiyey nin waxaan rabaa inaan waxbarashadeeda sii wato jaamici baan ahay waxaan rabaa masters iyo PhD wax la mid inaan qaato. hadal uu yiri oo cajiib oo ilaahay hadda markaan soo xasuusto aan naxo oo aan israahdaniyo hadalkan dadka qaarkii hadii lagu dhihi lahaa show wayba dami lahaayeenba ayuu yiri. nin wuxuu yiri intuu qosla wuxuu yiri maskiin baa tooy. haye meeshan Mareykan baa la yiraahdaa waa the world's biggest country bababa waxbuu ii tiriyay. haye dhowr cudur baa isugu ka darsantay markaas aad rabtaa inaad waxbarasho iyo sii aadid. war haddaad noloshaadii wax u heshid oo aad gaarigaada wadatid oo aad darawal noqotid oo aad meelahan ka shaqaysid maqaayadaha iyo nasiib baad leedahay. cudurrada iyo hay waa maxay ayarniin? wuxuu yiri number 1 muslim baa tahay, number 2 madow baa tahay, number 3 faqiir baa tahay, number 4 Soomaali baa tahay, number 5 ajnabi baa tahay. intaasoo cudur qof ay isugu darsameen ayaa tahay. markaas waxaa ka fikiraysaa master baan rabaa inaan diyaariyo iyo PhD iyo Mareykan. war kuwa indha buluuga ah ayaa tacbaan meeshan ku aniyo tartiibtaadu yiri isdaji ma fahamta horta meeshan inaga kaaga soo horeynay. you know what aniga waxaan joogay 16 years ayuu yiri. 16 sano ayaan joogay. waa gart marka cagaha dhulka dhig tartiibtaada waxoogaa shaqay waxbaan ku raadinaynaa marka don't worry. aniga aad iyo aad baan ula nahay. ilaahi ma hadii warkiisii ima gelin. mindset-kayga lion's mindset baan lahaa mentality jihadii kalaan qaatay wax alla wixii aan rabay ilaahi waa ii fududeeyay. aduguna iska ilaali hadda.